بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Antar Said Xuseen waxaan kugu soo dhaweynaa xarunta Baafo reportka waxa loo yaqaanaa profit and loss amba waa warbixinta lagu ogaanayo in shirkad ay wax faa'iideyso amba ay khasaarooso haddii ganacsi leedahay reportkan muhiim ku noqonaya dabcan waxa u baahanaysaa inaad ogaatid inaad wax faa'iideysid amba inaad khasaaroosid reportkan sidii la rabaa loo soo saari karaa amba loo daabici karaa maalin waa u soo saari kartaa oo ogaa kartaa inaad wax faa'iideysid iyo inaad khasaaroosid isbuuc oo ogaa kartaa bil oo ogaa kartaa saddex bilood isku qaban kartaa half sanad marka sidii la rabaa loo soo saari karaa reportkan haddaba reportkan wuxuu ka mid yahay saddexda report ee ugu muhiimsan reportkan wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan dabcan qaybta ku sareyso waa qaybtii aad ku ogaanaysay wixii dakhli ku soo galo qaybta ku xigto wuxuu noqonayaa qaybtii aad ku ogaanaysay wixii qarashaad ah galowsid shirkad ahaan qaybta ugu dambeysana waa qaybtii aad ku ogaanaysid inaad wax faa'iideysid amba khasaaroosid haddii marka qaybta ugu horeysa aan ka bilaabo qaybtan waxay noqonaysaa marka qaybtii iibka markaa samaysid amba markii aad wax iibisid amba adeeg aad qabatid lacagtaas ay soo galaysa waxa loo yaqaanaa sales amba feesna waa la dhihi karaa amba income marka dakhliga ayaa kasoo muuqanayo qaybta ku xigta waxay noqonaysaa haddii badeeco aad ka ganacsatid badeecadaas lafay ku fadhiday lacagta aad kasoo bixisay markii aad iibisid ayuu meeshan kasoo muuqanaya cost of goods sold ayaa loo yaqaanaa haddaba markii saleska iyo cost of goods sold la kala jaro waxaa soo baxaya gross profit oo ah faa'iidada buuran marka faa'iidadan waxaa laga sii jari doonaa qarashaadka maalin walba la galayo oo loo yaqaano operating expense amba shirkadda lagu maamulayo qarashaadkaas waxaa ka mid ah sida gaari raaci haddii shidaal gaari lagu shubo oo kale wixii dayactir oo kale wixii mushaarkii shaqaalaha oo kale lagu bixiyay kiradii meeshii shirkadda ay ku shaqeynaysay amba xafiiskii amba guriga ay ku shaqeynaysay kiradiisa waxaasoo dhan oo qarashaad oo la bixiyay ayaa loo yaqaanaa marka taas ayaa waxaa laga jarayaa gross profitka kadibna waxaa imaanaya wax loo yaqaano net profit amba net income oo ah faa'iidada nadiifta ah faa'iidada la shaqeeyay sida caadiga ah bilbila loo fiiriyaa laakiin waa ku sheego si la rabaa loo soo saari karaa xulaysa male marka bishaan oo kale waxaan faa'iidnay meeshan hoose ayaa kasoo muuqanayo waxayna noqonaysaa sida hadda meeshan ka muuqdo 337.86 haddaba bacdama systemkan uu yahay system isku wada xiran online ku shaqeynayo mar walba oo wax la iibiya ama qarashaad la bixiya isbedel ayaa ku imaanaya reportkan marka si automatic leh ayuu isbedel ugu maanayaa bacdama waxaan uu yahay system aan isticmaalayna uusan ahayn wax gacan lagu diyaarinayo gacanta xogaar waa iska dhib badan tahay gacan markaa ku qortid reportka markastaba update uu ka rabaya laakiin systemkan waxa waaye markii aad dhacdada soo diiwaan gelisid isla markiiba reportkan horay ayaa update ugu dhacaya marka waxyaalaha ku fiican yahay systemadan casriga ah ee kombiyuutarada ku shaqeeya isla markaasna online ka ah ayay ka mid tahay